والله دعادتي يقول حنون كبدني وما كاقفالو بايغو حنون بدنيد markaan magaalada Muqdisho anoo jooga ciidamada Itoobiyaana madaxtooyada inta madaafiic dhigteen magaaladii markii tarab ay ugu leynayeen oo aan arkay 60 qof oo afar dameer oo noola ah iyo 60 qof oo daadsan subaxdii indhahay ugu qabteen ay ugu xanuun badneed 60 qof maartay oo waliba hal goob kaliya oo isleeyahay markaas goobo fara badan madaafiicda ay ridayeen aad u fara badneed laakiin adigu hal goob arag anigu hal goob ku arkay markaas ay ugu naxdin badneed in Itoobiyaan inta ugu yimaadaan Muqdisho Soomaaliya iyadu way islaysaa oo dad fara badan oo Soomaaliya isdilaan laakiin waxa ka xanuun badan niman Itoobiya ka soo duulay inay saas shacabka Soomaaliyeed u gumaadaan haddana aan nuxur iyo naf ka sugno midii igu xanuunka badnay taas ay oo abni inay noo sugan haddana ka sii sugno dad Soomaaliya oo dameer loo haddana ka sii sugayeen inay maaragtay wax noo hagaajinayaan markaas ay ugu xanuun badnay shacabka Soomaaliyeed ka daawanay ogaal TV waxa soo jeedinayaan wallahi waxaan u soo jeedinayaa koow horta Soomaaliya waxay u baahantay inay walaalowdo inay ka tanaasusho maaragtay isnacaybka inay ka tanaasusho isnaca inay walaalowdo waxaan ku waxay la isku hayo example waxa la isku hayaa anigu hadda waxa aniga ila fag oo aan mabda'ooda dareensanahay in lagu kala fag yahay maanta dadka dagaalka dalka ka socda waxaan dhihi lahaa waxa la isku hayo inta laga wada hadlo example hadeer aniga hadeer ka hor waxaan ku iri nin cadaan aan ku arkay airport waxaan ku iri hadii ka waran hadaan nimankan shabaab dawladdu la heshiiso ma ogolin uu marka in anaka go'aan naloo gaaro inaan anaku midowno nimankan shabaabka waxaan weydiiyay niman hadee wadaadadii raggii hore shabaabka odayaasha ka ahaa qaarkood urur magac kale inta la bixinay soo carareen masaajidyada meelahan ay ku dhundhuntaan marka kuwaas dhundhumanayaan weydiiyaan war waxa nimanka aad ku soo khilaafteen waa maxay waxay ugu yiraahdeen shariicada islaamka oo aan gaalada ogolan hal ogeeyay aniga waxaan qabaa in laga heshiiyo waxaas oo shariicada islaamka hadii ma ogtahay laga heshiiyo qof islaamnimada inuu diido ma in shariicada islaamka dalka lagu dhaqo oo maartay nimankaas lagu ogolaysiyo sidaas dalkana dawlad loo yeelo oo qaran Soomaaliyeed oo jira loo yeero midowno taasaan qabaa wixii diidana oo shariicada islaamka in dalka lagu maamulo diidana in la iska dhaxsho oo mabda' kala wata in la diro adoo fursad ka faa'iideysana fariin maxaa u jeedin madaxweynaha dawladda federaalka wallahi waxaan u jeedi lahaa ballanqaadkaagi oo ahaa Soomaali walaala iyo adduunka caalamka la heshiisa ka rumee oo ayadii meel maray oo waa inaad isla markiiba Soomaalida sideedaba heshiis waxa tiri anigu waxaan ka ahay xaladhalay nacaybkan qof u hayay nacaybkaad qof u hayay waxa tiri wuxuu yiri tariinkaygu baabuurkaygu waa buuxaba la yiraahdaa baabuurkaygu tariinka dheeran soo kaxaysay tariinkii hadda waxa buuxshay wixii uu watay marka tariinkii waa buuxsamay meeshii kale wax la fuuli lahaa nasoo dadka u soo hel kuwaad wadato waxa uu jeedaa xisbigaagii ha soo hel meeshii kale la fuuli lahaa tariinkii waa buuxsamay hadda raggaagii ka buuxsamay kow midda kale sidaad u sheegto tiri Soomaali waxaan rabaa xaladhalay inaan ka noqono wixii ka rumeeyo hadda xaladhalay waxa lagu noqon karaa dadku in maslaxada dalkana lagu heshiiyo dalkana dadkana la heshiisiyo sidii aad u tiri Soomaali heshiisa iyo caalamkan la heshiisa ayadiina ka rumeeyo Soomaalidana walaal ka dhig oo walaale caalamkan inay la heshiiso ka dhigo Soomaalina waxa ugu horeysa inaad la heshiido gobolada hadeer khilaafku ka jira inaad khilaafkooda baabiido oo caasimadda keento oo iskugu keento oo heshiisiido oo waxay tabanayaan waa garanaya anigu maanta nin walba waa aqaan wuxuu tabanayo inaad ka daaweydo waxa weeye dani haduu subaxdu halkaan joogay ra'iisul wasaare siin lahaa waxa weeye wuxuu maslaxad asagu kursi uu asagu leeyahay maaha wiil wax iga maqloon mooshin ugu keeninaan dooranaya waxa ka fiican inaad nin wax kugu qabanaya la heshiiso oo asagii aad maartay maslaxada dalku ku leeyahay wax ka siiso marka waa kaas hadeer waxa weeye waxaan qabaa in la heshiiyo